daawada ku soo dhawow Hegan Media fadlan channelkan subscribe saar ka hor inta aadan muuqaalkan daawan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Dhuusamareeb haddii aan idin la socodsiiyo wararka saaka laga helaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxay sheegayeen in xaaladdu ay tahay mid degan kadib markii rasaas xalay dhex martay ciidamo ka tirsan dawladda iyo kuwa ilaalada u ah madaxa xukuumadda Galmudug taliyaha booliska degmada Dhuusamareeb Cabdullaahi Xasan Macallin ayaa sheegay in xaaladda magaalada Dhuusamareeb ay tahay mid degan isla markaana wixii ka dhacay ay ahaayeen wax sidaasi aan u weynan oo la xaliyay goobaha ganacsiga iyo shaqooyinka caadiga ah ayaa si toos ah maanta uga socda magaalada Dhuusamareeb waxaana ku sugan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo guddiga doorashooyinka wasaaradda arrimaha gudaha ay magacawday madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu baaq u diray madaxda ka qaybgalaysa shirka ka dhacaya wadanka Ruushka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kamid ah madaxda Afrikaanka ah ee lagu casuumay shirki ka dhacay dalka Ruushka iyo hogaamiyayaasha dalalka Afrika ayaa baaq waxa uu diray madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi madaxweynaha ayaa ugu baaqay madaxda ka soo qaybgashay madasha iyo maalgashadayaasha caalamka ee goobtaasi joogay in ay soo booqdaan Soomaaliya si ay u soo arkaan horumarka ay ku tilaabsadeen shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ayna u soo qiimeeyaan fursadaha maalgashi iyo kheyraad ee Allah uu ku manaystay dalka Soomaaliya ugu dambeyntii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay dhigiisa dalka Ruushka mudane Vladimir Putin xukuumadda iyo guud ahaanba shacabka dalkaasi soo dhaweyntii diiraneed iyo martiqaadkii sare ay ku qaabileen isaga iyo waftigiisa ayuu ku dhawaaqay in Soomaaliya ay soo dhaweynayso qodobada wax ku oolka ah ee ka soo baxay madashaas